kusoo dhawaada channelka Sooyaalka Media. Qodobadana ugu waaweyn maanta waxay kala yihiin Ra'iisul Wasaare Khayre oo xariga ka jiray garoonka diyaaradaha ee Parawe, Uhuru Kenyatta oo qaaday tallaabo uu farmaajo ugu soo marayo Abiy Ahmed, dowladda Soomaaliya oo karantiisay muwaadin ka yimid waddanka Shiinaha. dhankaasi wararka dibadda waxaa kamid ah Ashraf Ghani oo sii deynaya maxaabiista Taliban. magacaygu waa Maslax Nasiib. fadlan haddii aad ugu cusub tahay channelkan subscribe inoo saar si aad noola wadaagto wararkeena ugu dambeeyay adigoo mahadsan. haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shalay gaaray gudaha magaalada Parawe oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Khayre iyo wafdigiisa waxaa magaalada ku soo dhaweeyay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo mas'uuliyiin kale. intaas kadib Ra'iisul Wasaaraha ayaa si rasmi ah xarga uga jiray garoonka diyaaradaha degmada Parawe oo dhawaan dib u dhis ballaaran lagu sameeyay lana casriyeeyay qaybta ay diyaaradaha ka soo degaan kana duulaan ee runway. sidoo kale waxaa munaasabadda xariir jarka goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wafdi ka socda midowga Yurub. garoonka Parawe oo muddo burbursanaa ayaa waxaa gacan weyn ka geystay dib u dhiska lagu sameeyay ururka midowga Yurub oo si weyn u taageera Soomaaliya. wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i ayaa shalay magaalada Addis Ababa kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo kula hadlay dadaalada lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Kenya. Matiang'i iyo wafdigiisa ayaa Addis Ababa tegay kadib markii ay Muqdisho kula soo kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isku raaceen inuu soo boqdo Kenya waqti aan la shaacin. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaa lagu sheegay in Fred Matiang'i uu diray Uhuru Kenyatta si uu la soo kulmo Abiy Ahmed. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la rumaysan yahay in Addis ku dhowyeen madaxweyne Farmaajo oo hadda ka hor u kaxeeyay Nairobi lana soo kulansiiyay Uhuru Kenyatta. Kenya ayaa rumaysan in Itoobiya ay ciidamo ka joogaan gobolka Gedo ay awood u leedahay inay wax badan ka dhaadhiciso madaxweyne Farmaajo. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goob gaar ah ku karantiisay muwaadin Soomaaliya oo ka yimid dalka Shiinaha kaas oo shalay tegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay wasaaradda oo ka duuleysa waajibaadka shaqo ay ka saaran inay bulshada la wadaagto xogaha la xiriira caabuqa corona ee dunida ku sii faafaya. muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa saarnaa diyaarad Ethiopian Airlines oo soo gaartay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale sheegtay inay la xisaabtami doonto shirkadaha diyaaradaha ee Kenya amarkii dowladda ahaa inaan la keenin dalka Soomaaliya qof kasta oo ka yimaada dalalka uu ka dilaacay cudurka coronavirus, gaar ahaan wadamada Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan iyo kuwa kale. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe xilliga Afghanistan soo saaray wareegto ogolaanaysa in xabsiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan ka tirsan ururka Taliban, taasoo wadada u xaaraysa in militariga Mareykanka ay kabiyaan iskaga baxaan Afghanistan. arrintan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay Taliban iyo Mareykanka dhawaan ku gaareen magaalada Doha ee dalka Qatar, kaasoo hadafku u weyn yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka Afghanistan ka jirta muddo 19 sano. heshiiskan ayaa sidoo kale dhigaya in muddo 14 bilood ay dalka Afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah ee NATO, halka Taliban looga baahan yahay inay dib u heshiis siyaasadeed la gasho dowladda Afghanistan. Mareykanka durba wuxuu bilaabay inuu ciidankiisa ka soo saaro sida uu sheegay afhayeenka u hadlay militariga ilaa 8600 askari ayaa laga soo saari doonaa muddo 35 cisho gudahood. ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga ayaa hadda 13,000. daawadayaal intaasna waxaan nooga wararkeena warkan warka xiga intaan ku doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah.